مانتا ومالي وين مانتا مانتا مدحين بنالي مانتا مانتا ومالي وين مانتا مانتا مدحين بنالي مانتا مانتا ومالي وين مانتا kowda bisha luuliyo 2017 waxay ka dhacaysaa magaalada Marburg ee dalka Jarmalka xuskaasi oo waliba koobsaday maalinta ciidda iyo 26ka Juun waxaan ku saacsiminaa dhammaan bulshada Soomaalida ee ku nool dalka Jarmalka inay ka soo qayb galaan kowda bisha 7 ama kowda luuliyo ka soo qayb gal wanaagsan kowda bisha 7/2017 waa habeen xasuus leh taariikhdana baal dahab ka gali doona waa habeen kulmiyay maalmo iyo habeenna kala duwan oo taariikh dheer ku leh bulshada Soomaalida meel kasta ay dunida dacaladeeda ka joogaan haddaba dhanka barbaarta da'yarta iyo waliba gashaatida Mustafa waxaa dhanka heesaha habeenkaasi nooga haysa iyo waliba fanaaniinteennii أحمد aad baad u mahadsantay maalinta xuska qaranka ee kowda luuliyo kowda bisha 7/2017 waxay ka dhacaysaa magaalada Marburg fanaaniin codad macaan leh ayaa ka soo qayb galaya sidoo kale xuska maalinta ciidda iyo waliba xuska 26ka Juunna way weheliyaan waxaan ugu soo casuumaynaa dhammaan bulshada Soomaalida ee ku nool dalka Jarmalka inay maalintaasi qaranka aad u xusaan oo u weyneeyaan insha Allah ta'ala waxaan ugu bushaarinaynaa dhammaan bulshada Soomaalida ee ku nool dalka Jarmalka in maalinta ciidda haddii alla idmo 25ka bisha lagu qabanayo magaalada Gisan 10ka ilaa 6da fiidnimo xaflad aad u ballaaran oo Soomaalidu ay leedahay oo walaalkeen Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Eelay uu gudoominayo sidoo kale marka xafladaasi inoo dhamaato 2 maalmood 3 maalmood kadib kowda luuliyo maalinta qaranka Soomaaliyeedna wax lagu qabanayo magaalada Marburg waa ciido isbarkan waxaan rajaynaynaa in aad looga soo qayb galo oo aynu xusno wad mahadsantihiin